casharkeena maanta wuxuu ka bilaabanayaa xadiidkeena lixaad uu ka bilaabanayaa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam. xadiidkan waxaa laga warinayaa saxaabiga cabdillahi bni mascuud allah ka raali noqday. qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay yaa macshara ashabaabi, dhalinyarada kulunkeeday, man istataaca qofkii awoodo minkum xaalu idinka mid ahda albaa'ata awooda guurka ama qarashka guurka qofkii awoodo, falyatasawaj ha guursado. fa innahu maxaa yeelay guurku aqadu waa mid laabid badan wey lilbasari aragga, wa axsanu iyo mid ilaalin badan wey lilfarji farjiga ayuu ilaaliyaa. waman lam yastatic qofkaan awoodin fa calayhi waxaa dushiisa ahaaday bisowmi soom, fa innahu soomka lahu xaalo u sugnaaday wijaa-un dhufaan weeye. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu leeyahay xadiidkeena lixaad isagoo la hadlayo dhalinyarada inay guursadaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam kula dardaarmay guurka. wuxuu leeyahay yaa macshara ashabaabi, dhalinyaroy war dhalinyarada kulunkeeday, man istataaca minkum albaa'ata falyatasawaj, qofkii awoodo guurka qarashkiisa ka bixi karayo awoodiisa qofkii awoodo ha guursado. guurkaa u fiican, qofka dhalinyarada guurkaa u fiican. sababtan waxay tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sheegay, wuxuu yidhi fa innahu aqadu lilbasar, guurka wuxuu laabaa ama laabid badan yahay aragga wey. qofka dhalinyarada ah shahwadiisa ayaa badan, damiciisa ayaa badan, doonitaankiisa ayaa badan, marka araggiisa wuu dhacdhac badan yahay. mar walban waxaa laga yaabaa inuu fiiriyo qof dumara ajnabika inuu fiiriyo ama waxyaalo xaaraan inuu ku fiiriyo ayaa badan. marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmaya maadaama shahwadooda iyo dareenkooda ama doonitaankooda uu badan yahay inay guursadaan, inay si deg deg ay ku guursadaan haddayba awoodaan qarashka guurka ama awooda guurka hadday awoodaan. fa innahu aqadu lilbasar, araggan wuu laabaa guurka oo dhalinyarada araggooda u laabaa, wuu wanaajiyaa, akhyaar ayuu ka dhigaa. wa axsanu lilfarj, xubinka tarankan wuu u ilaaliyaa. qofka xubinkiisa taranka ah markuu xalaal u haysto dee xaaraan ma doonaayo. guurkana marka farjigaada iyo xubinkaada taranka ayuu ku ilaalinaya. waxaad xaaraan aada u galayso ama zine aada u galaysaan, xumaan aada ugu dhacayso, waa qof dumar ah. haddii mar aada guursato oo gurub ay kuu joogto waxaa kuu ilaashanaanaya xubinkaada taranka ayaa kuu badbaadaya. intaas kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waman lam yastatic, qofkaan awoodin, qofkii aan awoodin qarashka guurka oo awood ba aan u lahayn soomahan, fa calayhi bisoomo, qofkaas ha soomo. soomku wuxuu u yahay fa innahu lahu wijaa-un, soomku wuxuu u yahay dhufaan wey. wuxuu ka yareynaya shahwada, wuxuu ka yareynaya kuleylka, wuxuu ka yareynaya biyaha. marka dhufaan ayuu u yahay, ha soomo wey qofkii aan awoodin guurka qarashkiisa. can cabdillahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yaa macshara ashabaabi, dhalinyarada kulankeeday, man istataaca qofkii awooda minkum xaalu idinka mid ahda albaa'ata qarashka guurka ama awooda guurka falyatasawaj ha guursado. fa innahu maxaa yeelay guurka aqadu waa mid laabid badan wey lilbasari aragga, wa axsanu waa mid ilaalin badan wey lilfarji farjiga xubinka taranka. waman lam yastatic qofkaan awoodin fa calayhi waxaa dushiisa ahday bisowmi soon, ha soomo. qofkaan awoodin ha soomo wey. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisa hala qaato, qofkii awooda ha guursado, qofkaan awoodinna ha soomo ilaa uu kheyr iyo wanaag uu ka helaayo.